waxaanu nimi ku soo noqonay Xingalool habeen baan haddana oo yar maartay habeenka waan seexanay aroortii baan haddana waxaan u ballanay in aanu dhowr wax sameeyno waxa ilaahay mahadiya runtii in wasiiradeeniyo nala joogay xildhibaankeeni siyaasiyiinteeni inaan maanta halkan ku dhagax dhigayno qurba joogtu inay yiraahdeen waxaanu rabnaa oo lacag ka bixinayna jago aanu iskuulka technical school war dad badan ma helaan halka aan ku yar istaago technical school cid kasta u baahan laakiin manaan soo koobiyeen wax naga guuxayay alxamdulillah maanta waanu soo helay maanta way noo iibsantay jagadaas waa 100 bal hadda u fiirsada waxaynu kala leenahay ma jirto laakiin qolada qurba joogtu waxay wadaan xoogaa yar test bay wadaan bal private-kiina dhinac ka sameeya public-na dhinac ka gala waayo public partnership wax la yiraahdo adduunka horumara oo inay public iyo dadka public iyo wixii private loo leeyahay inta iskaashadaan ay markaa inta wax isku darsadaan wali wax keenaan taasaanu test ku wadnaa taasaan fariin idin kaga wadaa taasoo ahaanaya dhagax dhigano insha Allah waan idin ka barinaa inaad ku duceysaan culimadiina iyo waxgaradka iyo siyaasiyiinta iyo cid kasta oo maarta laakiin waxaynu naxaynaa saaka waxaan idhi wiilka halka joogan adeer waxay adaa lagu dhigay adeer soo dhawow waayo eeg xaqiiq waxa kuwaasaynu u dhisaynaa meeshii sama wiil iyo gabdhaba mashaariicda ay inoo keeneen hadda oo kani ugu dambeeyo oo dhul boqol intay iibiyeen ay rabaan inay inooga hirgeliyaan iskuul farsamo gacmeed runtii wax lagu faano oo lagu farxo weeye dadku dhammi wada heli karaan magaalooyinku dhammi wada heli karaan iyagu waxay ballan qaadeen inay dhulkaas iibiyaan weliba wax ka qabtaan ku sii dayn mayno marka keligood inay wax ka qabtaan inaba dad baynu nahay annagoo dawladdii idiin matelayna odayaashii iyo saraakiishii iyo culimadii iyo iskuuladii iyo intii kale oo dhan waxa la rabaa inay ka qayb qaataan waa dan guud runtii laakiin qurba joogta waa ku ixtiraamaynaa in ay hantidoodina halka inoo geliyaan inoogana shaqaysiiyaan weliba sida uu Cabdirashiid sheegayo xataa maaha reer Xingaloole waxa imanaya dadka kale ee maartay gobolada kale ka imanaya baa waxay u imanayaan maaragtay inay wax ka bartaan runtii qolada maaragtay dibadda Cabdirashiid uu gudoomiyaha u yahay aad baan ugu mahadcelinaynaa runtii way dadaalayaan ilaahay khayr badan ha siiyo ilaahay ubadkooda ay dibadda ku haystaanna ha ku dhowro naftooda iyo maalkooda Allah ku dhowro runtii aad iyo aad bay u dadaalayaan annaguna diyaar waxaan u nahay wax allaale wixii iyagu ay nooga baahdaan inaan la qabanno ka magaalo ahaan inaan la qabanno laakiin iyaga uga dambayno maamulkiisa iyo hawshiisa iyo dhismiisa laakiin wax annaga naloo ka baahdo aanu diyaar u nahay beedin ku soo tacabtayna ilaahay khayr ha siiyo ilaahay haddii beedinkeedii wax khayr qaba ha ugu bedelo wixii meesha ka soo saareen haddaanu nahay shacabka degmada Xingalool aad iyo aad baan ugu faraxsanahay barnaamijka kanu runtii barnaamij la heli karo maaha nin gurigiisii jooga oo farsamo gacmeed ku helay wax aad u qaaliy way barnaamijka farsamada gacantana annaga dibadaha ka shaqayn jirnayo dadku Soomaalidu aad uma tixgeliso laakiin waxa weeyaan nin adduunyada nin professor aad arkaysaayo farsamo gacmeed ka soo baxay waxa ciidanka asluubta meel ay diasporadu u dhisaysay waa la dhagax dhigay oo hadhow ay kula noqonayaan partnership waxaan lagu yaqaano luqadda qalaad oo inay iska kaashadaan diasporada iyo Puntland dawladda Puntland qolada qurba joogta oo runtii aan si gaar ah ugu mahadcelinayo oo wax badan had iyo jeer u taagan dalka horumarintiisa iyo baahi kasta oo timaadana loola yimaado haddeerna saaka halka waxa laga dhagax dhigayaa meel jeel oo 30 by 30 dhismaheedu dhan yahay oo ciidanka asluubta inay ku shaqeeyaan loogu talagalay dadkana waxa maartay wixii dambiilaale lagu xidho wixii la dhaqan celinayo waxyaabo badan insha Allah bay gali doontaa mustaqbalka qaybta hore iyo bilowgeeda hadda waxa qabanaysa qurba joogta laakiin waxaan codsanaynaa dawladda Puntland inay nagala qayb qaadato oo wax badan baa maartay waad garanaysaa oo dhulku dhismo badan buu baahan yahay laakiin hadda waxa way qaybta la dhisayaa ka badan mayso 3 qol iyo deyrka 30 ka marka la soo wareejiyo soo dhaweynta la igu soo dhaweeyay magaaladeennan dalkeennan aan iraahdo Puntland Xingalool siiba waxa muhiim in la xuso taliye Xuseen
oo runtii aan aad u wada xiriiraynay ilaa xaaladihii dee hawlihii aad ogeydeen aad iyo aad baanu ognahay hawlaha sida ay tahay xilka annaga naga saaran haddaan diasporada nahay ama qurba joog baan dhehe muhiimaddu marka waxa weeye dhowr wax baa la isla soo qaaday xidhiir baanu samaynay 3 qodob baanu kala qaadnay iyo maynu horreysiinaa inta waxaanu nidhi waxbarashadii iyo arrimaha bulshada amnigii iyo caafimaadkii waa 3 shalay toole markaan jiingadiyo soo maraynay waridaadii iyo sibaayo noo dhiman iyo meelo kale aynu samayn doono marka waxaanu isla qaadanay waxaanu nidhi kanu asluubtu saldhigga asluubtu waqti yar bay waan mar kasta lacagta intaanu rays garayno ama aanu ku yabohno uu inaga dhammaan karaa waxbarashadii laakiin caafimaadku waa ogtiin maaha inaynu dayacayno ammaanka oo khayr allaha siiyo ciidankeenu waa noo hayaan laakiin si dhaqso ah ilaa dadkii moogtay waan busba yihiin qaar baan wax ka go'in taasaanu marka u horreysiinay ammaanka taasuna waxay ku tusaysaa inaanu ammaanka number 1 ka dhigin meelaan ammaan ka jirin ku badbaadi maysid waxna lagu dhigan maayo waa lagu kala cararaya arrimihii bulshada weeye marka inaan arrimaha bulshada ka wada shaqeynana waa lagama maarmaan halka kan xarunta asluubta ee degmada bay noqonaysaa sida uu taliyuhu u sheegay xarunta asluubta bay noqonaysaa saldhiggii hawl maalmeedku uu ka soconayay magaalada dhexdeedu noqonaya dabcan halkani waxay noqonaysaa marka sida uu taliyuhu u sheegay ninkii xukunaa iyo kii dhaqan celiska ahaa iyo kii xukun sugaha ahaa iyo in lagu sii hayo halka kan waxaan rajaynayaa in aanay noqon oo ayna ka biqin in layna wada xidhxidho oo jeel iyo layna ku guree ay noqoto waxa weeyaan meel aynu ka wada qayb qaadanayno annaguna aad baan ugu faraxsannahay qurba joogteennu inay inoo bilowday dowladda puntlandna waa kula jirtaa dowladda puntland waa kula jirtaa insha allahu iskuul kale oo waxaanu tagnay isagana loo ballansanaa hoose dhexe ah oo la ballaadhinayay ilays oo ay arday badani ku jiraan oo dee ardaydii ay u baahatay in loo ballaadhiyo markii hore iskuulkaas oo iskuul private weeye oo muddo dheer soo jiray kadibna wasiirku khayr allah siiyo waxa weeye wuxuu ka ogolaaday runtii inaan annaguna codsiga aan ku jirnay dugsiga ilays dugsiga hoose dhexe waxaana fulinaya dowladda Puntland wasaaradda waxbarashada Puntland aad bay ugu mahadsan tahay runtii wasaaraddu dadaal badan bay baryahan muujinaysaa iskoolka ilays dugsiga hoose dhexe oo loo dhagax dhigayo maanta aanu joogna xafladiisa dhagax dhiga ahaa ay fulinayso wasaaradda waxbarashada iyo dowladda Puntland aad iyo aad baan wasiirka iyo wasaaradda ugu mahadcelinaynaa horumarka gobolka ay ka sameynayaan insha Allah waxaan rajaynaynaa intaas in ka badan iskuulka inuu sii dhameystirmo baahiyihiisa wasaaradda ay sii dhameystirto iyo wax badan oo kale aan ka filanayna wasaaraddaba aad iyo aad baad u mahadsantihiin mar labaad wasiir iyo wasaaradda dhammaan waxaa loo baahan yahay dadka laftirkooda inay contributionkooda ku darsadaan meelaha bulshada danta guud ee bulshada taasaa waxay keenaysaa dadku inay lahaanshihii dareemaan in la ilaashado wixii aanay noqon wax dawladeedoo sida dhaqanka Soomaalida la dayaco waxaan filaynaa iskuulka ilays qurba joogtii waa joogtaa annagoo dawladda matalayna shacabkii in iskuulkaasi noqdo iskuul laga wada qayb qaato oo si dhaqso ah u dhamaystirma ardada badan oo hadda kirada ugu dhigataan ay ka faa'iideystaan iskuulkaas waxaan rajaynaynaa inaan wasaarado kale ay dhagax dhigaan santaradoodii ama horumarintoodii magaalada waxna ka qabtaan runtiina noqon maayo iskuulkii ugu horreeyay iskuulo badan baan degmada aan ilaa shalay wadnay inaan dhagax dhigno iyo kuwa aan xadhigga ka jarnaba kuwa kalena waa soo socdaan insha Allah dhammaan gobolka waxaan rabnaa in wax muuqda ay wasaaradda waxbarashadu geliso iyo dhammaan dowladda Puntland hay'adaheeda kala duwan inay wax badan geliyaan sidii wasiir ku-xigeenadu ay sheegtayna dowladda Puntland wax badan baa uga qorshaysan runtii inay gobolada tan Highland iyo Sanaag labadaba ay geliyaan horena waa u sheegi jirnay haddana markhaanti baa laga yahay insha Allah waxaan rajaynaynaa mashaariicda inoo timaada oo iskuulada leh oo caafimaad kale oo nooc kasta oo wax qabadaba leh oo ama qurba joogi ha wado ama dawladdu ha wado ama cid kasta inoo keentee inaynu ilaashano oo ay noqdaan wax danguuda idinkan waxaan idinka rabnaa meelaha yaryar ee danta guud ah inay idinaana ciriiriyin ee aad u hiilisaan waxaa mahad weyn noo ah oo sharaf noo ah oo qiimo iyo milgano ah in maanta naloo dhagax dhigay iskuulkii ilays dugsiga hoose dhexe ee degmada Xangalool waxqabadkii iyo wanaaggii wuu muuqday dee hadal ma harin laakiin waa idiin ducaynaynaa insha Allah taala ilaahay miisaanka xasanaadka Allah idinku daro ka soconay waxaanu marka ku ballannay inaanu tagno
oonu soo dhigano cusbitaalkii xingalool referalka xingalool iyo MCH-ka oo xingalool iyo MCH kale oo xingalool ah iyaguna oo halkaa ku yaala ahaan waxa weeyaan Soomaaliya kastoo ka midaysan tahay adeega caafimaad inuu meelo badan liitaan laakiin si sanaag wax moodaa waxa gaabis badan inuu ka jiro adeega caafimaadka marar badan waxa arkaysa waxyaabo ilinku ku keenayo ka weysay marka qaar waxa dhacda in dadka qaar inta laga soo qaado tuulooyinka aanan la soo wargeliyo ambalaas aan haysan gaari aan ku doonaa haysan oo marka qaar loogu soo dhanaan geedaha iyo dhulka oo inta lagu tagnaa kaga soo dhanaan geedaha maadaama gaari lagu soo qaadaan jiro marka qaar waxa dhacda in loo kala hooyadii iyo gacantii ama madaxii ilmuhu ka soo jeedo oo qalin loo sameeyo u baahan meesha ugu dhowna tahay qardho oo loo socdo inta qiyaas kartaan ugu yaraan 3 saacadood 4 saacadood oo diyaargalowgeedii hooshooda u baahan marka waxa dhacda in aanu badbaadin karin in ilmihii hooyadii isku dhintaan oo marka qaar darno ilmihii meeyda aan hooyadii darno kiiska ugu dambeeyo kala dhaw cisho qaar waxa dhacay kiis hooyadii ilmihii ku dhintay emergency noocaas ay gashay iyadina ay dhimatay intaan gaariga u diyaarinay hada baabuurta wixii qaaday xitaa waa baabuur caadi oo maxay ku karada marka wallahi waxa jira waxa weeyaan dawlad badan meelo badan waxa arkaa oo dhaqaatiir tusaalahaan oo kala kalaasbina ama dad badan oo eeyo ka shaqeeyo oo deegaan ahaan xingalool ka yar laakiin saddex adeegooga caafimaad inaga hormarsan yahay oo tiyaatarkeeda oo haddana tusaalahaan waxaan samayn karaa qalinka hooyadii ma waana ku tababaranaya laakiin se goobteeda aynu ku howlgelayna ma hayno maraba waxay qasbaysaa inaynu bukaanadii tirno waxaad ogtihiin shaybaadho fara badan oo meesha yaala ma jiro waxaan ku shaqeynaa waxyaaba iska basiga oo serology iyo waxyaaba dhiigga ma haysano baaritaano aan ku eegi karno waxa weeyaan hooyadii baaritaan keliyaha kuwii weerka sawir xitaa raajo ma hayno waxa ugu yar waa raajo mug imika waxa dhacday dad fara badan inay amaantii gaadhay adeegii aan u qabanaynay dad badan oo bulshada inay gaadhay dad badan baa noo imaada laakiin mararka qaar waxa dhaca in aan adeeg fiican u fulin sababtuna waxa xadidaya tusaale qof baa jug baa soo gaadhaysa adigu dhakhtar ahaan soo dalbaday dhakhtar fiican baa halka lagu sheegay uu tusaale way miday ma haysana sawir aan ka qaadno qofkaas waa qasbanaan inuu kaan oo ku soo lugo qaxarna adeeg caafimaadka isbitaalka maanta maalin oo ka hormarsay oo wax laga qaban karo jirto maanta marka dadkaas maanta dhaafo oo tusaale ahaan aynaan maanta aynaan iska kaashan maadaama dawladda kuna dadka ugu sareeyay ay tiina meel ka sartaan taabtaan jirin inaan nagu iska kaashano waxaan wali ka mid ah jidahayga caruurta OTB-ga oo safiir malnutrition-ka jid ugu badan dhowr iyo 10 meelood baa keer 11 mar malanaya ay keer gacanta ku haysa ha jiidan baa ugu badan meelaha kale ma dhaafan dhowr iyo 10 dadka galaa bishii soo gala laakiin anaga 20 iyo dheeraad baan gaarnaa waxaana keenaya eeriyadan oo dhan meel nafaqad laga bixiyaa ma jirto ee ilaa tamala xagarre shimbiraale tuulooyinka oo dhan sibaaye waxaan haa dadna waxa kordhaya lambarka dadka malnutrition-ka ka kordhaya طبعا بدنا وين ويدينا تفوكس كيف يعني أنا حكينا يندس كنا مركو بابلش waxaan kale oo soo booqday iskuulka aflax oo K8 ah ama kindergarten ilaa 8 grade ah urbajoog haddaynu nahay oon ka socdo oon hadda dee iskuuladii halka aan ku dhaqnayn ee dowladaha ay naga bixinayeen Mareykanku waad aragtaa loo dhulkeeni si uu yar dayacan yahay dadkiina inaga u maqnayn marka waxaan rabaa inaan maamulaha iskuulka ku soo dhaweeyay oo waxaana xusid mudan 2016kii waa 4 sano ka hor baan imi halkan runtii aad iyo aad baan ugu qancay waxaan arkay maantana waan dareemo waxaan idhi kaale buildingkii waa la yar ballaariyay waan soo dhaweynaynaa 2006 bay ahayd cabdishid markuu halkan nagu soo booqday isaga iyo wafti kale oo odayaal oo la socda iskoolkuna uu yahay intan kaliya xataa daarada aan lahayn اللهم صل على محمد قولك دم oo lagu darana aan jirin marka maanta mar labaad waxaan ku soo dhaweynaynaa 2021da isagoo daaradii u xiran tahay de kulay magaaladoodii iyo de mandaqadoodii baan ugu yimaad aad baan u soo dhaweynaynaa aad baan ugu faraxsanahay
iskuulkan aflax dayactir badan baa jira daaradda ilaa taqriiban 2 jeel baanu dhisnay marba waa naga duuntay roobka dumiya oo sibir baana lahayn haddana waa dayacan tahay aad iyo aad bay u dayacan tahay waxaanu jecelahay qurba joogta oo Cabdirashiid Kow ka yahay fadlan bilaxsaan ku waxaanu jecelahay in la ka saacido iskuulka ribeerkiisa qolalka xafiis ma leh aween dad maxay isku tashaday baa sida laga warqabo taagay intaas wax kaalmaana waxaanu helay intaas oo maxay haytay keer noogu dartay dayrka baanu anagu ku daray gadaal marka kadibna waxa weeyaan intaas aanu ku banjarayo de waqtiga waad la socotaanin abaaraha iyo wixii Soomaaliya soo maray xooli inay dhamaadeen iyo wixii lagu warwareegi jiray oo xagga gudaha ay ka dhamaadeen waxaanu u jeednaa waa mushaariyada noo maqan aad iyo aad baa waadna aragtaan warin dhaadhaama waxaa runtii xusid mudan ururka ka howlgala ururka haweenka ka howlgala Xingalool ay ka mid yihiin ururka Caalmadow ururka Midnimo iyo ururka Waaye Arag oo aan la kulmay mas'uuliyiintooda iyo memberskooda baan ilaaday dadkii mas'uulka ahaa iyo haweenka ka tirsan ururka oo aad u badnaa oo runtii nagu soo dhaweeyay xarunta Midnimo oo Cadar ay mas'uul ka tahay Cadar waxaan runtii markaan ka soo laabtay Sibaayo aan niri saacad baad haysataa inaad ururkiinu ku diyaar garowdaan aad baan uga xumahay in macnaha ku karkabadeeyo laakiin de muhiim bay ii ahayd horaan u booqday waan ogahay hawsha ay ku mashquulteen inay yihiin arrimaha caafimaadka wax ka qabanayaan oo ka qayb qaataan arrimaha bulshada kooda mashquulsan yihiin arrimaha caafimaadka arrimaha waxbarashada arrimaha adeeg markay noqoto security-ga ama ammaanka magaalada inta hanuuninta ay dadka de waxyaabo ka hanuuninayaan ay ka howlgelayaan waxyaabaha jira dhaqanka inta badan aynu dhaqan isaga qabno laakiin waxyeelo dumarka ku haya way ka qayb qaataan taas aad iyo aad baan runtii ugu qushuucay habsamida iyo maamulka ka muuqda taas mid weeye waxaan se bogaadinayaa oo marka la ku celinayaa si habka trainingnada ay bixiyaan xataa ay siinayaan dadka dukaanleyda ah dadka ganacsatada ah oo ay tusayaan how to best manage ama sida ugu fiican ee loo maareeyo habka casriga ah baryahan oo ay barteen iyagu oo ay buug ka akhristeen ayay barayaan dukaanleyda ama ganacsatada aad baad u mahadsantihiin waan mid aan aad iyo aad waxaan ugu dheeraanayaa waa waxaan soo arkay wanaagga aan soo arkay baan ugu dheeraanayaa dumarka hawsha aheen waa mahadsantihiin assalaamu calaykum